أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ما أنت وأحد ربيع لباتنك جماد الأول كن أفر بقول صدح يا أفرتنك هجرة لحية لباتنك ديسمبر لبكن كوي لباتنك ميلادك وحان جوغا مكة المكرمة وحان أخرية xujooyinka qaarkood inuu sayid cabdullaahi bin cabdilmutalib aabbaha dhalay nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam uu jannada ku jiro. xujooyinka intooda badanna waxaan uga soo warramay oo ka soo warbixiyey markaan ka hadlahayey asayida aamina bintu wahab calayhi asalaamo hooyada dhashay nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam. waxaana ka akhriyayaa kitaabkayga nuuru lquluubi sala allahu calayhi waaalih wasalam mujalladkiisa labaad. waxaana ka bilaabayaa abtirsiga nebi maxamed sala allahu calayhi waalaa aalihi wasalam. abtirsiga nebi maxamed sala allahu calayhi waalih wasalam waa sida tan: magaciisu waa muxamed sala allahu calayhi waalaa aalihi wasalam. aabihiis sala allahu calayhi waaalih wasalam waa asayid cabdullaahi calayhi asalaam. awowihiis sala allahu calayhi waaalih wasalam waa cabdulmutalib, magaciisuna waa shaybat alxamdi. awowihiisa labaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa haashim, magaciisuna waa camr. awowihiisa saddexaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa cabdu manaaf, magaciisuna waa almugiira. awowihiisa afaraad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa qusay, magaciisuna waa zayd. awowihiisa shanaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa kilaab. awowihiisa lixaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa mura. awowihiisa toddobaad sala allahu calayhi waala aalihi wasalam waa kacab. awowihiisa sideedaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa lu'ay. awowihiisa sagaalaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa khaalib. awowihiisa tobnaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa fihir, magaciisuna waa quraysh. awowihiisa kow iyo tobnaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa maalik. awowihiisa labiyo tobnaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa annadru. awowihiisa saddex iyo tobnaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa kinaana. awowihiisa afar iyo tobnaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa khusayma. awowihiisa shan iyo tobnaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa mudrika, magaciisuna waa caamir. awowihiisa lix iyo tobnaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa ilyaas. awowihiisa toddoba iyo tobnaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa mudar. awowihiisa sideed iyo tobnaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa nizaar. awowihiisa sagaal iyo tobnaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa macad. awowihiisa labaatanaad sala allahu calayhi waaalih wasalam waa cadnaan. asayid cabdullaahi calayhi salaam. nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam aabihiis waa cabdullaahi bin cabdilmutalib bin haashim bin cabdu manaaf. cabdullaahi hooyadiis waxay u dhalatay qabiilka qureysheed ee reer bani makhsuum. magaceeduna waa faatima bintu camr, faatima bintu cumar bin caa'id bin cimraan bin makhsuum bin yaqda bin mura bin kacab bin lu'ay bin khaalib bin fihr oo ah ninka magaciisu quraysh yahay. cabdullaahi koofaartiisu waxay ahayd abaa qutham. waxaa kaloo la yidhi abaa muxamed, waxaa kaloo la yidhi abaa axmed. cabdullaahi wuxuu dhashay 25 sano sanadka maroodiga ka hor, waxayna isku bah ahaayeen oo isku hooyo yihiin abu taalib iyo azubayr oo ah adeerada nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam, iyo gabdhaha uu aabihiis cabdulmutalib dhalay oo idil intaan ka ahayn safiya
oo ay xamza isku hooyay ahaayeen, kuwaasoo kale ah caatika iyo umayma iyo 3 barra iyo 4 umu xakiim albaydaa iyo 5 arwa oo ah eedooyinka nebi maxamed sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam. cabdullaahi wiilasha la dhashay oo walaalihiis ah waxay ahaayeen: 1 alcabbaasu, 2 abu taalib, 3 diraar waa daadka dhibicda korka ku leh, 4 abulahab oo magaciisu yahay cabdulcuza, 5 almuqawam, 6 cabdulkacba, 7 xamza, 8 azubayru, 9 alxaarisu oo ah curadkiisa, 10 qutham, 11 xajal, 12 alghaydaaqu. culummada qaarkood waxay ka reebeen alghaydaaqu oo waxay yidhaahdeen waa isla ninka la yidhaahdo alxajalu. culummo kalena waxay yidhaahdeen adeerada nebigu sala allahu calayhi wacala alihi wasalam waa 10 oo waxay ka sii reebeen cabdulkacba oo waxay yidhaahdeen waa isla ninka almuqawam la yidhaahdo. cabdullaahi aabbihiis aad ayuu u jeclaa, caruurtiisa isagaa ugu qurxoonaa, uguna dhowrsanaa, uguna gobsanaa. cabdullaahi wuxuu ahaa nin cad, wejigiisana uu nuur ka kaahayo. cabdullaahi wuxuu leeyahay qiso yaab leh oo u dhiganta midda awowihiis nebi ismaaciil calayhi salaamu. qisaduna waxay ahayd sida soo socota: cabdulmutalib markuu qodayay ceelka zamzam oo ilaahay isagoo hurdo uu tusay meeshuu ku yaallo, ayaa waxaa dul yimid gaaladii qoraysh oo ku yidhi, ma waxaad rabtaa ceelkan inaad keligaa yeelti? waana ceelkii awoowaheen, oo adigoo hal wiil keliya leh miyaad rabtaa inaad annagoo dhan isa kaaya daafacdid? wiilkaasna wuxuu ahaa wiilkiisa curadkiisa alxaaris. markuu cabdulmutalib bin haashim qoraysh kala kulmay wixii uu kala kulmay markuu ceelka zamzam qodayay, ayuu nadar ama shardi galay oo ah in hadday 10 wiil u dhashaan oo ay wada qaangaaraan oo ay markaas inta isaga xumaan la doonaysa ka celiyaan, inuu wiilashiisaas midkood kacbada agteeda qurbaan ahaan ugu gowrici doono. markay wiilashiisu 10 gaareen uuna hubsaday inay cadowgiisa ka celinayaan, ayuu wada shiriyey, kadibna uu nadarka uu galay u sheegay, uuna oofinta nadarkaas weydiistay. asuhayli wuxuu yidhi, wiilasha cabdulmutalib si aan shaki iyo mugdi ku jirin waxay ahaayeen 10 wiil. waa intaas warka asuhayli. nebi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo adeerkiis xamza waaba isku fac, oo thuwayba ayaa wada nuujisay. adeerkiis alcabbaas 3 sano nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ka hor ayuu dhashay, nadarka oofinta kadib. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa diiday in cabdullaahi la gowraco. markaasay quraysh iyo wiilashiisa kale waxay yidhaahdeen, wallaahi inaadan weligaa gowracayn. jeer aad cudurdaar u raadisid oo haddaad gowracdid nin walba intuu adiga kugu daydo wuxuu soo wadan doonaa wiilkiisa si uu u gowraco. hadday sidaas yeelaanna dadka waxba ka hari mayaan. taas kadibna maxay nololi noqonaysaa oo ay qiimoba leedahay? waa markuu damcay inuu wiilkiisa cabdullaahi gowraco. markaasuu almugiira bin cabdullaahi bin camr bin yaqda oo ay in adeertiis ay isku reer yihiin ay cabdullaahi dhashay,
oo sidaas cabdullaahi abtigiis ku ah wuxuu yidhi wallaahi inaadan weligaa gowracin jeed aad cudurdaar uu ku badbaado u raadisid markaad sidaas yeeshid hadday badbaadadiisu noqoto inaan maalkeenna ku furanno waan ku furanaynaa abtigu iyo reer abtigu wax yar ma aha nebigaa waxaa u soo galay masjidka sala allahu calayhi waaalih wasalam nin gacanta ku dhegan wiil yar markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam wiilkan muxuu kuu yahay markaasuu ninku wuxuu yidhi walaashay ayaa dhashay oo abtigiisaan ahay markaasuu nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi inna walada ukhti alqowmi minhum oo macnihiisu yahay wiilka ay rag walaashood dhasho gabar la dhalatay ay dhasho waxay raggaas ku leeyihiin xaqa uu ku leeyahay wiilka uu walaalkood dhalo oo gabarta iyo wiilka walaalahood dhaleen waa isku xaq bay ku leeyihiin raggaas marka wiilka ay walaashaha dhasho iyo wiilka uu walaalkaha dhalo agtaada isku xaq ayay ku leeyihiin taas weeye xadiidka macnahiisu oo waxaaba u soo kacay abtigiis asayid cabdullaahi bin cabdilmutalib oo aabbihiis doonayey inuu gowraco quraysh iyo wiilashiisuna waxay ku yidhaahdeen cabdilmutalib ha gowricin ee waxaad la aadaa alxijaaz oo ah arliga maka almukarama iyo almadiina almunawara ku yaalaan halkaasoo ay joogto haweeney faaliso ah oo jinni saaxiib la ah leh oo markaas ayada weydiiye arrinkiisa markay kuu jawaabto kadib talada adigaa iska leh oo gacantaaday ku jirtaa oo hadday inaad gowracdid ku amarto gowrac haddayse wax adiga dani kuugu jirto isagana faraj ugu jiro ku amartana ka yeel markaasay dhaqaaqeen oo almadiina almunawara yimaadeen waxayse ogaadeen inay faalisadii magaalada khaybar joogto oo 170 kilomitir meelahaas u jirta almadiina almunawara oo ahayd magaalo yuhuud ay degto alkhastalaani wuxuu yidhi magaceeduna wuxuu ahaa haweenaydaas qubta siduu ugu wariyey alxaafid cabdulghani kitaabkiisa almubhimaatu azarqani wuxuu yidhi ibnu isxaaqna wuxuu ku wariyey riwaayadda yuunus inuu magaceedu ahaa sajsaaj waa intaas warkoodu markaasay soo safreen oo ay u yimaadeen oo ay arrinkooda uga warrameen cabdulmutalib wuxuu uga warramay khabarkiisa iyo khabarka wiilkiisa cabdullaahi iyo wuxuu doonay iyo nadarkuu galay markaase waxay ku tiri maanta iga laabta si markuu jinniga ii raacsan ii yimaado aan arrinkan ka waraysto markaasay agteeda ka soo kaceen markay soo baxeenna cabdulmutalib intuu istaagay ayuu ilaahay baryay subaxii dambe ayay ku soo jarmaadeen haweentaas markaasay u yimaadeen waxay ku tiri markay u yimaadeenna waxay ku tiri khabarkii waa helay ee tolkiinna dhexdiisa diyada ninku waa meeqa waxay yidhaahdeen waa 10 halaad oo geel ah sidaas ayayna ahayd waxay tidhi beledkiina ku noqda markaas waxaad ilaahiinna qurbaan ahaan ugu soo bandhigtaan saaxiibkiinnan oo ah cabdullaahi iyo 10 halaad oo geela markaas labadoodaas u qori tuura hadduu qoriga saaxiibkiin soo baxo geela 10 halaad ku dara
oo sidaas ku wada ilaa uu rabbigiin raalli ka noqdo tirada geela oo ninka lagu furanayo. hadduu qorigu geela ku soo baxana saaxiibkiina ku furta oo geela bireeya oo gowraca, maxaa yeelay rabbigiin tiradaas ayuu raalli ku noqday, saaxiibkiinna waa badbaaday. markaasay soo baxeen oo ay maka almukarama ku soo laabteen. markay inay taladaas ku dhaqaaqaan isku raaceen ayay kacbada galeen. cabdulmutalibna allabari u istaagay. kadibna waxay qurbaan ahaan u soo bandhigeen cabdullaahi iyo 10 halaad oo geel ah, ayadoo uu cabdulmutalib hubal ag taagan yahay uuna ilaahay casa wajalla baryayo. markaasaa loo qori tuuray, qorigiina wuxuu ku soo baxay cabdullaahi. oo markii hore cabdulmutalib 10kiisa wiil ayuu wuxuu ku yidhi magacdiina qori ku soo dhiga oo waa u qori tuuraynaaye. markaasuu wuxuu u geeyey kan faaliyaha qori tuurka sameeya. markaasuu u qori tuuray, waxaana soo baxay qorigii uu ku dhignaa magaca cabdullaahi. saasuu u goostay inuu cabdullaahi gowraco. markaasay geela 10 halaad ku dareen oo uu 20 halaad noqday. markaasuu cabdulmutalib allabari u istaagay. markaasaa loo qori tuuray, qorigiina wuxuu ku soo baxay cabdullaahi. markaasay geela 10 halaad ku dareen oo uu 30 halaad noqday. markaasuu cabdulmutalib allabari u istaagay. markaasaa loo qori tuuray, qorigiina wuxuu ku soo baxay cabdullaahi. markaasay geela 10 halaad ku dareen oo uu 40 halaad noqday. markaasuu cabdulmutalib allabari u istaagay. markaasaa loo qori tuuray, qorigiina wuxuu ku soo baxay cabdullaahi. markaasay geela 10 halaad ku dareen oo uu 50 halaad noqday. markaasuu cabdulmutalibna allabari u istaagay. markaasaa loo qori tuuray, qorigiina wuxuu ku soo baxay cabdullaahi. markaasay geela 10 halaad ku dareen oo uu 60 halaad noqday. markaasuu cabdulmutalib allabari u istaagay. markaasaa loo qori tuuray, qorigiina ku soo baxay cabdullaahi. markaasay geela 10 halaad ku dareen oo uu 70 halaad noqday. markaasuu cabdulmutalib allabari u istaagay. markaasaa loo qori tuuray, qorigiina wuxuu ku soo baxay cabdullaahi. markaasay geela 10 halaad ku dareen oo uu 80 halaad noqday. markaasuu cabdulmutalib allabari u istaagay. markaasaa loo qori tuuray, qorigiina wuxuu ku soo baxay cabdullaahi. markaasay geela 10 halaad ku dareen oo uu 90 halaad noqday. markaasuu cabdulmutalib allabari u istaagay. markaasaa loo qori tuuray, qorigiina wuxuu ku soo baxay cabdullaahi. markaasay geela 10 halaad ku dareen oo 100 halaad noqday. markaasuu cabdulmutalib allabari u istaagay. markaasaa loo qori tuuray, qorigiina wuxuu ku soo baxay geela. markaasay quraysh iyo intii kale oo goobjoogga ahayd waxay cabdulmutalib ku yidhaahdeen way dhammaatay oo rabbigaa raalli ayuu noqday cabdulmutalibow. waxay yidhaahdeen inuu cabdulmutalib yidhi wallaahi inaanan yeelayn jeer aan 3 goor u qori tuuro oo 3daba geela ku soo dhacdo. markaasay cabdulmutalib iyo geela u qori tuureen. markaasay cabdullaahi iyo geela u qori tuureen. markaasuu cabdulmutalib allabari u istaagay. markaasuu qorigu geela ku soo baxay. markaasay mar saddexaad ku celiyeen ayadoo uu intaas cabdulmutalib taagan yahay oo uu ilaahay baryayo. markaasuu qorigii geela ku soo baxay. markaasay 100kaas halaad oo geela ah la gowracay oo hilbahooda bannaanka la dhigay ayadoo aan dad iyo dugaagba laga celinayn oo aan laga reebayn. shareecada nabi maxamedna
sala allahu calayhi waalihi wasalam ee islaamku way qireen boqolkaas halaad oo geela oo cabdullaahi lagu furtay oo diyada ninka muslimka ah maanta shareecada nebi maxamed sal allahu alayhi waalihi wasalam waa 100 halaad oo geela. ibnu addabiixayn labadaas qiso oo ah qisada nebi ismaaciil calayhi salaamu iyo qisada cabdullaahi bin cabdilmutalib ayaa sabab u ah in nebi maxamed sala allahu calayhi wala alihi wasalam loogu yeeray ibnu addabiixayni oo macnaheedu yahay wiilka ay dhaleen labada aabbe oo la gowracay kadibna uu ilaahay subxaanahu wa tacaala labadoodaba badbaadiyey. bukaanka ee dhimashada cabdullaahi intay cabdullaahi wuxuu raacay safarka qureysheed ee aaday ashaams rixlatu shitaa'i wasayfi waxayna tageen magaalada maanta la yiraahdo iyo waagaasba ghaza kadibna loo bixiyey ghazatu haashim maxaa jira waxaa halkaas ku duugan nabiga awoowihiis haashim bin cabdimanaaf. haashim halkaasuu ku duugan yahay arliga falastiin. markay cabdullaahi iyo asxaabtiisa safarku tageen ghaza oo ay ka soo jeesteen ganacsigooda way soo gadoomeen ayagoo doonaya inay maka u soo noqdaan. intay dariiqi ku soo jireen ayaa cabdullaahi bukooday markaasi raggii kale hawdaj rati uga kordhiseen oo ay sidaas ku soo qaadeen oo ay almadiina almunawara keeneen. asiira alxalabiya waxay warisay inuu cabdullaahi asxaabtiisa safarka ku yiri anaa atakhallafu cinda akhwaali bani cadiy bin annajaar oo macnihiisu yahay anigu waxaan ku harayaa reer abtigay bani cadiy bin annajaar. waa intaas warka alxalabiya. reer bani cadiy bin annajaar waa reer abtiga aabbihiis cabdulmutalib oo haashim bin cabdimanaaf ayaa halkaas wuxuu ku guursaday almadiina almunawara haweenta la yiraahdo salma binta camr annajaariya markaasay u dhashay cabdulmutalib oo ay hooyadiis u bixisay shaybatulxamdi. marka saasuu u leeyahay reer abtigay cabdullaahi waana reer abtigii aabbihiis cabdulmutalib. cabdullaahi wuxuu ku degay guriga ninka koofaartiisu tahay annaabiqa magaciisuna yahay xaarith bin ibraahim bin suraaqa alcudriyi oo u dhashay reer bani cadiy bin annajaar oo aabbihiis cabdulmutalib qabiilkaas uu dhalay oo u reer abti ah. reerkaas waxaa u madax ahaa annaabiqa. safarka intiisa kalena wuxuu soo aaday maka almukarama. cabdullaahina waxay uga soo tageen guriga annaabiqa isagoo xanuunsan. markay maka yimaadeen oo uu cabdulmutalib khabarka wiilkiisa cabdullaahi uu gaaray wuxuu soo xusuustay inuu aabbihiis haashim dal shisheeye ku dhintay oo ah ghaza arliga falastiin. adeerkiis almutalibna uu dal shisheeye ku dhintay oo ah yaman. adeerkiis nawfalna uu isagoo qariib ah arliga ciraaq magaalada maanta la yiraahdo almadaa'in ku dhintay. wuxuuna isweydiiyey cabdulmutalib cabdullaahina ma isagoo qariib ah ayuu yathrib ku dhiman doonaa. markaasaa waxaa cabdulmutalib u yimid wiilkiisa azubayr oo ku yiri cabdullaahi meeyi. wuxuu cabdulmutalib ku yiri wuxuu ku haray reer abtigiis yathrib. azubayr wuxuu yidhi muxuu safarka ula soo noqon waayey. cabdulmutalib wuxuu yidhi halkaas ayuu ku bukaa alxaarith ayaana dirayaa inuu walaalkiis soo celiyo. markaasuu azubayr wuxuu yidhi bal anigaa safraya oo soo celinaya. sidaas ayuu azubayru almadiina almunawara ugu safray si uu walaalkiis cabdullaahi u soo qaado. waxaa kaloo la yidhi waxaa almadiina u safray
si uu cabdullaahi u soo celiyo walaalkiis alxaarith oo ahaa curadka cabdulmutalib. azubayr ama alxaarith wuxuu yimid almadiina almunawara isagoo cabdullaahi uu dhintay kadib markii uu bil halkaas ku jiranaa laguna xabaalay daarta annaabiqa. azubayru maka almukarama ayuu ku soo laabtay. markuu khabarka dhimashada cabdullaahi maka almukarama soo gaaray waa laga wada naxay waxayna dadku isweydiiyeen maxay tartay in 100 halaad oo geel ah lagu furtay hadduu in yar kadib ba dhimanayo. xikmada furashadiisa iyo dhimashadiisa ku jirtay waxaase garatay ruqaya bintu nawfal oo ah waraqa bin nawfal walaashiis oo nafteeda isku tiri cabdullaahi waxaa 100 halaad oo geel ah loogu furtay inuu noolaado oo aamina bintu wahab guursado oo uu la gogol galo uuna ku wareejiyo oo ku ammaanaysto ugana tago nuurkii wejigiisa ka kaahayey. ruqaya waa in adeerta umulmu'miniin khadiija bintu khuwaylid calayhi assalaamu. aabbahay iyo hooyaday waan u shafeeco qaadayaa. azarqaani wuxuu wariyey inuu tamaam kitaabkiisa alfawaa'idu ibnu cumar uga wariyey inuu sala allahu calayhi waaalih wasalam yidhi idaa kaana yowma alqiyaamati shafactu liabii wa ummii. markay tahay maalinta qiyaame waan u shafeeco qaadayaa aabbahay iyo hooyaday. nebi maxamedna sala allahu calayhi waaalih wasalam maalinta qiyaame gaal uma shafeeco qaadayo. qaali abuubakar azarqaani wuxuu yidhi qaali abuubakar ahna mid ka mid ah a'immada madhabka maalikiyada ayaa waxaa la weydiiyey nin yidhi nebiga aabbihiis naartuu ku jira xukunkiisu muxuu yahay? nebiga sala allahu alayh waali wasalam aabbihiis wuxuu ku jiraa naarta. nin yidhi muxuu yahay xukunkiisu? qaali abuubakar wuxuu yidhi inuu ninkaasi malcuun yahay, naxariista ilaahay laga fogeeyey, ayadoo ilaahay tacaala yidhi ina aladiina yu'duuna allaha wa rasuulahu lacanahum allahu fi اdunya wاlaakhirati wa acadda lahum cadaaban muhiinan. kuwa dhibaya ilaahay iyo rasuulkiisa ilaahay naxariistiisu ka fogeeyey adduunkan iyo aakhiraba, wuxuuna u diyaariyey cadaab dulliisa. mana jiro dhibaato ka weyn in la yidhaahdo aabbihiis sala allahu calayhi waaalih wasalam ama nin kastaba naartu ku jiraa. waa intaas warkiisu. kuwa dhintay ha caayina oo aad markaas dhibtaan kuwa nool. atabraani wuxuu kitaabkiisa almucjamu assagiiru ku wariyey inuu nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam yidhi laa tu'du alaxyaa'a bisabbi alamwaati. kuwa nool ha ku dhibina cayda kuwa dhintay. axmed iyo atarmidi waxay almughiira bin shucba ka wariyeen inuu nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam yidhi laa tasubu alamwaata fatu'duu alaxyaa'a. kuwa dhintay ha caayina oo aad markaas dhibtaan kuwa nool. shakino kuma jiro inay nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam dhibidiisu gaalnimo tahay. qofka sidaas yeelana la dilayo oo uu sidaas dhiiggiisu xalaali u yahay hadduusan ka toobadkeenin. maalikiyadu waxay qabtaa in qofkaas mar kasta la dilo
haddii laga marakaco inuu sidaas yeelay isaguna uu inkiro ama kaba toobad keenana waa la dilayaa, meydkiisana waa la dhaqayaa, laguna tukanayaa, xabaalaha muslimiintana lagu aasayaa. hadduusanse sidaas yeelin oo uusan inkirin ama ka toobadkeenin, gaal ahaan ayaa loo dilayaa, qubuuraha gaalada ayaana lagu duugayaa iyadoo aan la dhaqin laguna tukan. sidaas waxaa qaba madhabka shaaficiyada. marka xukunka nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam aabbihiis iyo hooyadiis waxaa weeye inay labadooduba badbaadeen oo ay jannada ku jiraan. dhibkaas carruurtiisana waa dhibaysaa nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam. oo waxaaba dhacday genaraal shariif cabdulqaadir cumar oo dalka ingiriiska degan oo xaj u yimid isagoo shitaawaha xajka saaran ee carafaad, inuu nin baska la saarnaa yiri nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam aabbihiis iyo hooyadiis naartay ku jiraan. markaasuu si u soo jeeday dharbaaxo xoog leh ku dhuftay. maxaa jira wuxuu dhibsaday in aabbihiis la yidhaahdo naar buu ku jiraa. marka ka fiirsada warkaas. inay jannada ku jiraanna waxaa u daliila xadiista soo socota. kow, ayagoo la soo nooleeyey oo ay aamineen waa asayida aamina bintu wahab calayhi asalaamu iyo cabdullaahi bin cabdilmutalib calayhi asalaamu. nebigu ilaahay suu baryey oo u soo nooleeyey, markaasay rumeeyeen oo mu'miniin noqdeen oo ay qabrigoodii ku noqdeen, haddana ilaahay halkaas ku celiyey. ayagoo la soo nooleeyey oo ay aamineen siday u sugeen alxaafid assuhayli iyo alqurtubi iyo naasiruddiini almuniir. oo waxaan aad isagoo tifaftiranna uga soo hadlay inay videoga asayida aamina calayhi asalaamu aan uga soo warramay. laba, ama ayagoo zamanka fatrada ku dhintay bicsada horteed, taasoo horteed ayan cadaabi jirin. saddex, ama ayagoo ku taagnaa diinta alxanafiya iyo towxiidka, gaalnimona aan la imaan, siday u sugeen imaamyada assanuusi iyo atilimsaani, kanoo dembeeyey oo sharxay oo leh xaashiyadda kitaabka ashifaa ee alqaadi ciyaad. wuxuu azarqaani ku soo gunaanaday oo uu yidhi kuwaasi waxay ahaayeen nusuustii daliilada qoraalka ahaa culimmadeenna, keyrkoodna kama aanan arag wax khilaafsan. intaan ahayn midka dabaysha ka qaata nafta oo hawadiisa ku nool ee ibnu daxya, taasoo uu alqurtubi uu jawaabidiisa kafaalo qaaday. imaam asayuuti wuxuu dhigay 6 kitaab oo waaweyn uuna ku daliilinayo inay nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam aabbihiis iyo hooyadiis calayhim assalaamu raallina ka noqdee ay iimaan la yimaadeen marka la soo nooleeyey. kitaabka masaaliku alxunafaa'i wuxuu kaloo ku tiriyey qasiido dheer oo arrinkaas ku saabsan, uuna azarqaani ku soo guuriyey mujalladka 1 bogga 350 ee kitaabkiisa sharxulmawaahibi alladuniya. alxaafid ibn xajar alcasqalaani wuxuu kutubadiisa qaarkood ku yidhi waxaana lagu wadaa inay qoyskiisa sala allahu calayhi waaalih wasalam oo bicsada horteed dhintay
وهاشم ينتو دلي يا عبد المطلب ينتو دلي رقي هوينبا يوحي ينتو دحديبا أي امتحان كمالنت قيامه إلهي أدي عيان وسيدان هور أيضو تففتران أصو قوريني أي مركز جنة قليان كرامين نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كرامين أيوه الحافظ ابن حجر العسقلاني الزرقاني وحجري ابن حجرنا وحال لغوة اسكو أوران ميو هدوسن حجوين سيدا مالنتا عد هيسن ابن حجر وحي كتاب كيس الأحكام السيوطنا كتاب كيس الإصابة كجري أنقنا وحان رجينينا إنو عبد المطلب يقويس كيسو أي جنة قلان لنا قلان كو إلهي أديعي أو مركز بدبادو ابن سعد وحو ابن عباس كوريه إنو عبد المطلب مركز أصحاب الفيل أي مكي ماذين أجري اللهم إن العبد يمنع رحله فأمنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوى محالك ودعاء أسقبك معنى هذا وحوي إلهيو الضوامضو قريه ذوي إلى شذين ودافعين مركا أدقنا قريها إلى شو ودافع ها أقولانين إني كريستادودا يهوبالكوذو أي بريتو هبكاغا كحوق بطان إلهينا دعاديسة وابا أقبل يوه سيدي نوشكتي سورة الفيل أمحاركي أبرها الأشرم هو تعيدا كأمحاردا يأرمدا ككوبا وأي من مكة إني دميان كعبدا قرق إلهي واتو إلهي شمبرو أصدري لايهي قوبتاس هل قوب كليه waxaa lagu dilay 60,000 ayaa shimbiruhu ku dileen waadi muxasir oo maka ka tirsan waana qisada ku soo aroortay suuratul fiil musnadka imaam axmed wuxuu wariyey abaa raazin oo ninka nabiga weydiinaya sallallahu alayhi wasallam aabahay oranaya magaciisu waa abaa raazin aabahay maya ma orane wuxuu yiri hooyaday xagee ku sugan tahay hadalkaanu wuxuu si sariix ah oo cad uga soo horjeeda xadiidka wariyay inay aabihiis iyo hooyadiis sallallahu alayhi wa sallam la soo nooleeyay oo ay aamineen oo islaameen wuxuu kaloo ka soo horjeeda warka arraazi iyo warka inta tiri inay labadooduba ka mid yihiin ahlul fatra oo aan dacwadu gaarin oo ka hor imaanaya waxa la hubo oo sugan oo nas ah oo ilaahay wuxuu yiri suurat al-israa 15 aayada 15aad wuxuu ku yiri wama kunna mu'adhibiina hatta nab'atha rasuulan mana aanan ahayn kuwa cadaaba jeer aan rasuul soo dirno asayuuti xadiidka muslim xujo ma aha ayuu yiri azarqaani wuxuu yiri xadiidkan muslim uu wariyey siduu asayuuti u yiri uma qalmo laa yuslixu in xujo laga dhigto ayadoo oo muslim gooni ugala baxay albukhaari أحاديث أو مسلم قوني وقال بحي البخارينا وحاكو جرى أحاديث وحلقة الشيقي أولا الدري أين أبدا انتهي إنو متكانو كمديحي وحانا أصبب إنو ثابت إن كستوءها إمام لغو كالسون يحي ابن عدي وحو قدري ضعفادا وحو نيري وحا أحاديثتي سلاقها لي رد كوريي oo aan la aqoon oo majhuuliin ah sababtuna ay tahay inuu ducafo
ka wariyey waa intaas warkiisu. asuhayli wuxuu yidhi xadiidka macmar bin raashid waa qalad. azarqani wuxuu yidhi asuhayli wuxuu xadiidkan ku cileeyey inuu macmar bin raashid warintiisa uu thaabit ka wariyey kanoo anas ka wariyey ay ka duwan tahay oo khilaafsan tahay warinta xamaad ee ma uusan warin siduu xamaad u wariyey ina abii wa abaaka fi nnaari, aniga aabbahay iyo adiga aabbahaa waxay ku jiraan naarta. nebigu ma oran sala allahu calayhi wasalam, bal wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam idaa mararta biqabri kaafirin fabashirhu binnaari. mar kastoo aad qabri gaal ag martid ugu bishaaree naarta. waana sidaas uu u yidhi iyadoo uu macmar warinta uga sugan yahay xamaad, iyadoo ay labada sheekh albukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen warinta axaadiista uu wariyey ana xifdigiisa la durin. waa macmare axaadiista uu wariyeyna aan waxba laga diidin oo la wada qaatay. xamaadna inkastoo uu ahaa imaam caalim ah caabid ah, haddana jamaaco ayaa riwaayadiisa ka hadlay. albukhaarina saxiixiisa xadiidna kama warin, muslimna kama soo warin usuusha waxaan ahayn xadiidkiisan uu thaabit ka wariyey. waana intaas warkiisa warkuu azarqani yiri. xadiidkanna wuxuu asuhayli ku wariyey kitaabkiisa alrawdu alunufu mujalladka 1 boga 299. الذهبي azarqani wuxuu yidhi الذهبي wuxuu yidhi xamaad waa lagu kalsoon yahay, wuxuuna leeyahay awhaam ahna qaldaad aan ula kac ahayn iyo manaakiir badan oo munkar. waa xadiid uu qof keligiis wariyey oo khilaafsan isla xadiidkaas oo dad kale oo badan wariyeen oo lagu kalsoon yahay. waxayna oran jireen in kutubtiisa axaadiis la dhex geliyey oo lagu daray innahaa dussat fii kitaabihi. waxaana kutubtiisa ku daray wiil ay haweentiisu nin kaleoo ka horreeyey isaga u dhashay oo rabiibkiisa ahaa isagu uu korinayey, magaciisuna ahaa ibnu abi alcawjaa oo muslimiinta dhib badan u geystay. anaa ku daray hadalkan. xamaadna ma xifdin jirin axaadiista uu masjidka ku warinayo oo karka kama qaban jirin ee wuxuu ka akhrin jiray kitaabka isagu uu dhigay laftiisu. markaasuu dadka u wariyey kitaabkaas uu wiilkaasi geliyey u wariyey oo sidaas qalad uusan ula kicin ku kacay oo ku dhacay. sidoo kale albukhaari axaadiistiisa ma warin, marka xadiidka macmar ayaa ka sugan waana helnay. xadiidkiisana waa xamaade waxaa lagu beeniyey kuwa la mid ah riwaayadaha macmar uu ka wariyey anas iyo xadiidka sacd bin malik iyo xadiidka ibnu cumar. sacd bin malik waa sacd bin abi waqaas nebi maxamed sal allahu alay wasalam abtigiisa oo uu weydiiyey aabbahay waa kee? markaasuu nebigu ku yidhi sal allahu alayhi waali wasalam aabbahaa waa maalik. qofkii wax ka duwan sheegana waa beenlow. abu waqaas magaciisu wuxuu ahaa maalik. atabraani iyo albayhaqi waxay intaas ku kordhiyeen. kadib ninkaas reer miyiga ahi wuu islaamay, wuxuuna yidhi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu igu kallifay oo ii xil saaray wax idaaliyey oo mar kastoo aan qabri gaal ag maro waxaan ugu bishaareeyaa naarta.
musnadka imaam axmed wuxuu wariyey abaaraazin wuxuu weydiiyey hooyaday xaggee bay ku sugan tahay ee ma oran aabbahay xaggee ku sugan yahay. warkiisu waa intaas oo la soo koobay ayuu azarqaani yidhi. azarqaani wuxuu yidhi waxaa kaloo wariyey abu daa'uud, labadooduna waxay ka wariyeen waa xadiidka hore xamaad bin salama oo ka wariyey thaabit oo ka wariyey anas inuu nin yidhi, ninkuna waa aburaazin alcuqayli sidii u yidhi ibnu abi khaythama, ama waa xusein bin cubayd aabbaha dhalay cimraan siduu u wariyey ibnu rashiid. kitaabka alburhaanu wuxuu raacay midda hore wuxuuna yidhi inuu aabbaha dhalay abiraziin islaamay, magaciisuna waa caamir bin sabra. kitaabka alburhaanu wuxuu raacay midda hore wuxuuna sheegay inuu aabbaha dhalay abiraziin islaamay, magaciisuna waa caamir bin sabra. marka nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam ma odhanaya nin ama laba nin oo asxaabta ah oo isdhalay naartay ku jiraan? maya weye, xaasha. daarul iftaa'i almisriya oo dowladda masar leedahayna waxay sheegtay sidaan horay kitaabka sayida aamina bintu wahab calayhi asalaam ugu soo warinay, waxay sheegtay daarul iftaa inuu cabdullaahi jannada ku jiro. intuu ahaa zamanka fatrada. azarqaani wuxuu yidhi marka fuqahadu ka hadlaan fatrada waxay ka wadaan zamanka u dhaxeeya ciise calayhi salaamu iyo nebigeenna calayhi salaatu wassalaam. albukhaarina wuxuu salmaan alfarisi ka wariyey inuu isagu yidhi zamanka fatradu waxay ahayd 600 oo sano. allahuma salli calaa sayidina muxamedin wacala ali sayidina muxamedin kama sallayta calaa sayidina ibraahiima wacala ali sayidina ibraahiima wabaarik calaa sayidina muxamedin wacala ali sayidina muxamedin kama baarakta calaa sayidina ibraahiima wacala ali sayidina ibraahiima fi lcaalamiina inaka xamiidun majiid wasalam tasliima kasiira kulama dakarahu daakiruuna wagafala can dikrihi alghaafiluuna. waxaan ku jirnaa masjidka nabiga sala allahu calayhi waala alih wasalam ee almadiina almunawara. waana maalin sabti ah. waxaan joognaa qabriga aabbaha nebi maxamed sala allahu calayhi waala alih wasalam dhalay asayid cabdullaahi bin cabdilmutalib. meeshaan taleefonku saaran yahay waa qabrigiisa. waxaa guri halkaas ku ooli jiray oo beytunaabiqa la odhan jiray ku guursaday haashim bin cabdimanaaf. wuxuu ku guursaday salma bintu camr annajaariya. markaasay halkaas meesha taleefonku saaran yahay waxay ugu dhashay cabdulmutalib bin haashim, awoowaha nebi maxamed sal ly slm halkaasuu ku dhashay. nebi maxamed sal allahu alayh wasalam sanadkiiba hooyadiis sayida aamina calayhi asalaam halkaanay keeni jirtay gurigan. markaasuu hal bil meesha taleefonku saaran yahay guriga ku yaalla uu joogi jiray. halkaanuu dabaasha ku bartay. qabrigiisu wuxuu ku yaallaa albaabka 13 ee masjidka 318 oo ku beegan albaabka baabi sacuud malik sacuud. albaabka 8aad ee masjidka waay. kanna waa albaabka meesha baabuurta la dhigto oo 6aad. qabriga sayid cabdullaahi
wuxuu u jiraa qabriga wiilkiisa nebi maxamed sal alla alay wasalam 150 mitir meelahaas masjidka dhexdiisuuna ku yaalla cabdullaahi iyo sayida aamina hooyada nebi maxamed sal alla alayh wasalam culammadii islaamka hore waxay yidhaahdeen waxay ku jiraan jannada weliba waxay uga jiraan jannada meesha ugu sarraysa firdowsa meesha ugu sarraysa ayay ku jiraan in shaa allah wiilkoodayna la joogaan ma kula tahay kuwa leh wax ka duwan warkooda ka baxa waa kanaa qabrigii sayid cabdullaahi waa sayida ina shariifa safiya محمد حداد شريف محمد شريف صفية شريف محمد حداد إيوه إنا نور شيخ فاطمة شيخ نور أور طبلة إيوه حاجية صفية مع الأحمد حتى أنا عسر تكني ناشاس يعني هذا نفرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cimaamadeedu waxay kor saaran tahay qabriga السيد عبد الله بن عبد المطلب aabbaha dhalay nebi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaa halkaas uga jeedaa shariifa safiya shariif maxamed xadaad bidixdeedana waxaa fadhida ina safiya sheekh nuur fartuun sheekh nuur midigteedana waxaa fadhida ina macalin axmed safiya macalin axmed meesha cimaamadu taallo gurigii ku ooli jiray waxaa ku guursaday haashim oo waxaa halkaas ugu dhashay cabdulmutalib waxaana ku duugan cabdullaahi nebi maxamedna sanadkiiba mar bay hooyadiis keeni jirtay sal allahu alayh wasalam oo bil buu halkaas degenaan jiray qabrigaani wuxuu u jiraa qabriga wiilkiisa maxamed sal allahu alayh wasalam 150 mitir wuxuuna ku yaallaa albaabka 8aad ee masjidka culummadu waxay isku raacday in ay cabdullaahi iyo sayida aamina calayhi salaamu ay nebiga calayhi salaatu salaam la jiraan oo jannada meesha ugu sarraysa ay joogaan